kulanti wacan oo wanaagsan idinka baaqiyaarta qiimaha iyo qadarinta inaga mudan meel kasta waa joogtaan iyo soo waliba noo dhageysanaysaanba halkani waa radio Beledweyne FM 88 MHz waxaad ku soo dhawaataan saaxiibayaal dhageystayaal barnaamijkii maqalka bulshada radio Beledweyne oo ah barnaamij toddobaad walba xiliyadan oo kale aad ka dhageysataan radio Beledweyne codka dowlad goboleedka Hirshabelle muujada rakiidaya 88 MHz barnaamijka maqalka bulshada dhageystayaal toddobaadkan waxa martin ugu ah isla markaana aynu ku wareysan doonaa gudoomiyaha maamulka degmada Maxaas ee dowlad goboleedka Hirshabelle Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale waxaana gudoomiyaha ka wareysan doonaa xaaladda amni ee degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan howlgaladii ugu dambeeyay ciidamada dawladdu ay ka sameeyeen degmada Maxaas iyo sidoo kale xaaladaha abaareed ee ka jira degmada Maxaas ee bariga gobolka Hiiraan iyo waliba waxyaabii u qabsoomay maamulka degmada Maxaas oo gudoomiyaha ka yahay muddadii oo xilka hayay barnaamijka anigoo qaalidalka casa ayaa dhageystayaal idila socodsiin doona dhanka farsamada intuu socdo barnaamijka waxaa ay farsamay doona saaxiibkii Cabdisalaan Xasan Jimcaale mar kale ku soo dhawaada dhageystayaal saaxiibayaal barnaamijkii maqalka bulshada radio Beledweyne oo ah barnaamij toddobaad walba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan radio Beledweyne codka dowlad goboleedka Hirshabelle isla markaana toddobaadkan marti uu ugu yahay gudoomiyaha maamulka degmada Maxaas ee bariga gobolka Hiiraan Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale mar kale ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii maqalka bulshada radio Beledweyne dhageysi wacan gudoomiye marka hore ku soo dhawow radio Beledweyne codka dowlad goboleedka Hirshabelle ku dhawahay waxaan ka wareysan doonaa mudane gudoomiye xaaladda amni ee degmada Maxaas howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladdu ay ka sameeyeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan xaaladaha abaareed iyo waxyaabihii muddadii xilkaada haysay aad leedahay ka gudoomiye ahaan maamulkaadu waa uu ku guuleysay ama waa uu qabtay haddii aan ku horeyno degmada Maxaas xaaladda amni ee degmada haddii aad nala dul marto bismillahi rabbil nasta'inu ala umuri dunya wa diin sallallahu ala nabiyina Muhammad ama ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xaaladda degmada Maxaas hadda amaankeedu wuu fiican yahay maalin dhaweed qarax baa ka dhacay Allah ha u naxariisto gudoomiye ku xogeenkii ku dhintay Ilaahay ha u naxariisto eheladiisina samar iyo imaan ka siiyo saasaan leenahay insha Allah taala inta ka bacdi ciidamada amaanka howlgalay sameeyeen tabagalay sameeyeen baaritaano ilaa dad 5 qof gaaraya hadda u xirxirnaa arrintii walina dad kale taa lagu sii daba jiro oo la sii raadinayaa hadda waxaa la tilmaamayay ilaa Beledweyne in raad macnaha ay soo galeen hadwalad arrimahaas haddana ilaa 5 qof amal u xiran oo degmada Maxaas ku xiran waa gartay ilaa ay hadda ma jiraan cid si rasmi ah qaraxaas loogu toonsan yahay inay ka dambeeyeen oo baaritaano lagu sameeyay ama cadeymo ah ee muujinaya in qaraxa qofkaas uu ka dambeeyay ka dhacay degmada Maxaas wallahi Allahu a'lam raga macnaha kiisaska baarayo ciidamada ahi sidii sheegayaan 80% kiiskii waa noocadii asaasi soo gudbeen waa gartay marka insha Allah taala wixii ka harsan waa la dhameystiri doonaa waa sidee marka xaaladda amni ee degmada Maxaas xaaladda amni ee degmada Maxaas aad ayay u fiican tahay 100% waa way degan tahay horna way deganeed qaraxaas oo dhagarqabayaal ay noo soo qariyeen ayaa magaalada la soo galiyay qaraxaasi cidii ku dhimarto sababteedu gashaa ku dhimato Ilaahay ha u naxariisto eeladeedina sabar iyo imaan Allah ka siiyaan leeyahay insha Allah taala xaaladda amniga degmada hadda way degan tahay waa isdhaxayaa adoo jugtu markii la maqlo meedkii dhaawacay meesha laga kala qaado wixii ka dambeeyay dadku caadigiisii waaye wax jaxan cabsiyo ma gelin magaalo amaankeedu 100% yahay waaye haday ciidamada tahay kuwa amisom ha noqoto kuwa dawladda ha noqoto xitaa dadka hay'adaha haday yimaadaan wax la waardiyaa ma jiraan amaan 100% ku dhaxmaraan cid kastoo timaado ama hay'ada ama dawliga ama kormeer hay'adadu amaankan hadwaleedmo caasimad goboleedka iyo gobolka xitaa kama jiro xitaa caasimada Muqdisho Soomaaliya kama jiro yiraahdan waa meel ilaaha mahad iska leh amaankeedu 100% bulshada ku noolnay kalsooni 100% ku nooshaa waa xaq amni waa gartay wadarta guud ee dadka hadda la soo qabtay ee howlgalka ama qaraxa ka dhacay degmada lagu soo qabtay maxaa noogu sheegi kartaa wallahi 5 qof oo xiran adiga faktii hore maalintii qaraxu ba dhacay 2 nin la soo qabtay maalintii dambe nin la soo qabtay maalintii ka sii dambeeyay nin la soo qabtay 5 nin kulli ciidamada amaanka haya ayaga baaraan kulli arintaasna kama hor dhacayaana markii insha Allah taala kiisku cadaaday soo wada gudbi doonaan wararka macnaha xoogaa yar macnaha
laga sii helo wardugiisana boqolkiiba 80 kiiska uu cadiyaa saas inoo soo bandhigan anaga waa gartay haddaan mudane guddoomiye intaas kaga nimaado howlgallada ciidamada amnigu ay ka sameeyeen degmada maxaas iyo dadka looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay ee dhowaan degmada maxaas ee garaabtay allah u naxariistee guddoomiye xigeenkii dhinaca amniga degmada maxaas ee gobolka hiiraan haddii aan usoo laabano maxaas waa magaalo nuucee ah maxaas taariikhda degmada maxaas haddii aad la wadaagto bulshada ku daawanay ama ku dhageysanaysa maxaas degmada maxaas waa degmo qadiimiya madaxweynihii hore dowladda dhexe Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxay kala hartay magacii qura magacii degmanimadii kala hartay degmooyinkan USC oo hadda la dhookeeya ma ahan waa degmo caalami ah madaxweynihii dowladda dhexe Soomaaliya oo magacaabay magaca degmo macnaha ku magacaabay intaan hay-adihii dowladda aan loo dhisin dowladdii yaa burburtay degmadaasi marka waa degmo magaceedu baa dhulkii ku xadkii macnaha ay haysato bari waxay kala wadaagtaa galguduud xuduud kala leedahay koonfur waxay xuduud kala leedahay shabeellaha dhexe waxay la jaar tahay ceeldheero bulaale iyo diris tahay iyo ninka la yidhaahdo xadkeedu iyo ninka la yidhaahdo ceelbaraf iyo la diris tahay ilaahay idinka haddii ku noqoto waqooyi guri ceel meel ku dhow hadduu alidmaa macnaha xaddigeedu tagaa waa degmo baaxad weyn oo tuulooyinka hoos yimaadaa ilaa 60-70 ay gaarayaan degmadaas marka insha allahu tacaala ammaankeedu waa fiican yahay degmada dadka ku dhaqmaya waa dad xoolaaleeya beerahana oo boqolkiiba 30 camal boqolkiiba 70 xoolaaleey waaye boqolkiiba 30 waa beero yar yar oo hadda macnaha wabiimo maro hadduu aleedmo beero marka yar yar ay leedahay boqolkiiba 30 dadka waxaa ku nacafiyaa beero waa dad hadduu la raali ka noqdo xooluhu ayuu hanti gaaram ah waxaa laga yaabaa qoys dhanaa 100 neef oo ari oo haystaa 10 qof uu gaaraya haddii arigaas la qiimana waxaa laga yaabaa $2,000 inuusan gaari karin laga yaabaa dadkaas marka dad xoolo ku tiirsan waaye xoolihii maanta kuleyl badanaa ka qabtay abaaraa ka qabatay ilaahay idinka haddii ku noqoto marka meeshaas waxaa ka jira abaaro maanta ayaan dhaweyd tuulada magay tuulo la yidhaahdo taadaan uga soo beegan muddo adiga 20 kilomitir camal koonfur waxaa ku dhintay anigu yaroo 3 jira oon awgis ciyaalkii kaleeta markaa gaari inta lagu qaado taadaan la geeyaa laga waraabiyaa la rusheeyaa hadduu alidmo degmada maxaas maanta xaaladan caadi ahayn oo dhanka abaarta ha ka saameeday waxa uu khatar badnaa xagga biyaha waxa uu kala khatar badnaa xoolihii oo ka maxluulay hadduu la raali ka noqdo u gadmi kari waaye hay-adaha SAF iyo WFP aan ugu dambeey jireen hadda WFP gacanteedu ugu dambeeyay hay-adda SAF hadda degmada maxaas shaqadeedu waa ka maqan tahay waxaan hay-adahan ugu baaqayaa iyo NGO-yada hadduu alidmo caalamiga iyo kuwa localka degmada maxaas hadda wax ka jira oo baana ka jira abaara ka jirta xoolihii waa ku baaba'ayaan hadduu daaqxumi kula baaba'ayaan dadkuna xooluhu ku noolaan jiray mar haddii xoolihii aad ku noolaad hadduu alidmo qofka saahidu haddii ay ka go'do nolol meel uma taalo dadka saahidoodu xoolahay ahayd xoolihiina jilaalkaas iyo macluushaas la tageen marka meeshaas waxaa ka jirta abaar baana ka jirta ilaahay fadligiis hadda meelo yaryar roob ka da'daay roobkaas yaroo da'daay nasriyaa lagu helay insha allahu tacaala oo hadda baabi iyo xoolaha waa xoogaa kala sakharmay boqolkiiba 20 ma dhama inta roobku ku daay boqolkiiba 20 wax ka yaraa roobku ku daay roobkuna xataa marka laga reebo meelo yaryar roob naqnaq ah oo macnaha itaal badnayn waaye meeshaas marka aniga gobolka waxaan u soo aadsaday inaan macnaha aan warbaahinta aan kala hadlo dadka dowladda deeq bixiyaasha ama hay-adaha ama maamul goboleedka Hirshabeelle degmada maxaas jiilaal baana haysta dadkii mar waxaa jira jiilaal xoolaha haya oo dadku ka fiican yahay iyo mar abaar dadeed ay jirto oo xooluhu ka fiican yihiin labadiiba hadda waa isku haydaa marka hay-adaha caalamiga maamul goboleedka Hirshabeelle dowladda federaalka waxaan gaarsiinayay deeq bixiyaasha degmada maxaas kuleyl baana ka jira dadkii dunida abaar isku hayday ilaahay qaadirka ku ah waxaan ka baryaynaa roob degdegsiya inuu siiyo hadda ayaan wad meel roob ka deen xooluhu iska macluulsan oo itaal daran xoolo badan oo roobkii laay marka insha allahu tacaala xabashan ka muujinaya deegaanada ugu badan ee dhibaatooyinka hadda aad tirinaysa ay ka jiraan magacyadooda haddii aan nala wadaagi karto waa kuwii wallaahi waa badan yihiin maba la soo koobi karaba inta degmadu waxa ugu nolol roon oo xagga biyaha ugu roon ceelasha ila biyo ceelaha isha biyaha leh meelaha jooga hadda dirsin biyo motorka taadaan oo kaleeto deegaano fara badan oo ilaa 40 baraagay tuulooyin iyo baraaga macnaha dad degan iyo tuulooyin gaar aan ahayn hoos timaada hadduu aleedmo biyaha looga qaadi lahaa biyihii macnaha motorka wuxuu ku roonaa waayey xoolihii imaanayo cagooda biyo kusoo doonanaya
kuwii meeshaas waxaa ka baxay markaas khadka oo hadda sida magay kaleeto in oon lagu dhinta sababay dooleedmo motoorkii taalkiisa yaraaday horta waxaan uga cabanayaa dooleedmo jaaliyadda iyo maamul goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka dhamaan teedaan motoorkiisa haddii aan wax laga qaban dadka meeshaas jooga oo ku baaba'aya khalqi fara badan hoos yimaado motoorkii uu ka daalan yahay ayaa nabad gudoomiyaha gobolka iyo wasiir Faarax Gacame waxay u ololeynayeen in dhaqaale loo ururiyo si motoor cusub loogu gado meesha la yiraahdo teedaan biyo laan ba'ana ka jirta motoorkiisii uu daalay dooleedmo motoor cusub ay u baahan tahay dadkaasina wixii ka soo baxa shidaalkiisa iyo waxaan macna lahayn ka roonaan kari waayeen taasna cabashadaas waxaan ka gudbinayaa tuulada teedaan xagga motoorka waxaa soo haray in dadkii waxay sababtay markaas in maxaas iyo bilcile biyo loo doonay sababtay dadkii teedaan agagaarkiisa joogaan markii motoorkii biyo laga waayay meelaha ugu daran marka waa sida dooleedmo xagartii waa sida meesha la yiraahdo baanyaaley adiga soo kaxay in meesha la yiraahdo in tuulada la yiraahdo in muqla macaash bukure gadoomo weyn teedaanka laftigiisa dubugal inabaal sulmo dheriyo meesha la yiraahdo magayaabo qof ku dhintay si dhaqaaji waabweyn qowl meesha la yiraahdo in ganuurubad jiijo joojoola ramaas ninka la yiraahdo maxuu ahaay in habeena maalin dhaweed waxay marayna soo waceen waxay yiraahdeen haddaan galabta aan biyo naga soo gaarin 4 saac mar soo waceen haddaan galabta biyo naga soo gaarsiin dad badan oo laba maalmood aan biyo cabin aan nafbaxaya dooleedmo eeriyada degamada biyaha looga 5 kilomitir wixii jooga ee taalibi ku doontaan wayn oor lama haysta dooleedmo urtu iska baabado waxay daaqeeda xumaaday wixii hadda uu joogan meelaha seeriga loo kacay degamada maxaas haduu la raali ka noqdo rafaadka ka jiro biilaanta iyo rafaadka ka jiro dooleedmo baahida bini'aadamka xoolaha ku tiirsanaan jirto xoolaha ka macluulaan boqolkiiba 90 waa cidii wax ka qaban karto haduu la raali ka noqdo ama hay'ada ama maamul goboleeda ama dowladda federaalka waxaan u gudbinayaa codsi dadkaas in loo samafal waxyaabaha hadda ugu daran as leedahay bulshada ku nool degmada maxaas iyo waliba deegaanada hoos yimaada aad tirisay maxay waxyaabaha ugu daran ee hadda aad codsanaysaan ka maamul ahaan in dadka lala gaaro dadkaas in lala gaaro waxaan codsanayaa adiga biyo dhaamin in lala gaaro oo codsanayaa ilaahay roobka inoo soo boobsiyo xitaa hadduu roob yimaado waxaan dadka aan ka harayno xoolihii maanta way fogaadeen inay bil iyo santii roob dhaqan ma soo naf celinayaan dadkaas abaara haydo xoolihii uma gadmayaan riiriyaha yaroo ay haystaan aan naftooda ku tiirsaneed dadkaas tamata bixin u baahan yahay xagga raashin hadda xilli roobaadkii ayaa bilaabmay deegaano badan oo ka tirsan hiiraan roobka way ka da'een ma jiraan deegaano hoostaga degmada maxaas ay roob ka da'een haddii ay jiraan magacyadooda manala wadaagi kartaa meelo yow kooban oo roobku ka da'ay roobku marka roobka qoton kale adiga mar haddii suuba la gaaro dubugalkii kheyr aan la aado sidaa ilaa la aadaa dooleedba waa aariya dhinacaas dubugalkii kheyr aan laga tallaabo aan roobka qoton kale la gelayaa adiga bilcile iyo meel u dhexayda ganuurubad xoogaa roob xustul camal gaaraha galay meelaha kaleeto waa calaacal iyo xidid doole waxyaaba caynkaas oo naqnaq iyo rasu kooban oon usbuuc la waa gartay magaalada beledweyne ayaa timid sidaa tilmaantayna ujeedada ugu imaatay waxay ahayd in aad hay-adihii xarumooda ugu waaweynaa ay ku yaalaan magaala madaxda gobolka hiiraan ee beledweyne inaad la hadasho inaad maamulkii aad kala hadasho weli sidaad u imaatay beledweyne ma la kulantay madaxdii hay-adaha iyo haddii halaan kuwii maamulka mase u sheegtay dhibaatada ka jirta degmada maxaas haddii aa u sheegtayse maxay kaa yidhahdeen wallaahi weli lama kulmin maamulka gobolka waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala in beri aan la kulmo hay-adahana isniinta hadduu la raali ka noqdo inaan la kala kulmaan rajeynaya cabashooyinkaas aan degmadii aan ka wada aan u gudbiyo hadda waxaan miidiya aan ka sheegayaa hay-adda seef 80% degmada maxaas waa ay ku tiirsanaan jirtay haddii xag lacageed tahay haddii xag nutrition tahay ilmaheena nafaqadara ku hayda meeshii hadduu la raali ka noqdo adiga hadda hay-ada ka shaqeeya waa jiraan sida meersi oo kaleeto kuma filan karta marka hal hay-ada kuma filan karto oo degmada tuulooyinka hoos yimaada wax fara badan waa 3 iyo 4 hay-adood hadday tagaan 3 iyo 4 hay-adood haddii ay tagaan nutrition kuma filan karaan tuulooyinku ayaga aad u wada fara badan hadda seef
dhowr ay ka shaqey jirtay ilaa 6-7 tuulo ka shaqey jirtay dhowr sano markay wada kuwa kale bedeshay qaaran abadan la tigana weli tagan marka oo tuulooyinku degmadu deegaan aad u fara badan ay leedahay oo hoos yimaada haddii waa leedmo waxaan marka hay-adda seef mar labaad aan ugu celinayaa maxaasu kama maaranto way u baahan tahay hadday nutrition tahay haddii biyo dhaamin tahay haddii ay tahay macnaha kaalmayaashii lacagaha ay tahay hadduu la raali ka noqdo hay-adda seef waxaan ku celcelinayaa degmada maxaasu kama maaranto gurmadadii iyo tabarucaddii u samey jirta ha u sameydo saasaan leeyahay insha allahu tacaala ilaahay haddaan ka helna axadda xafiiskeeda inaan tagon maamulka ugu sarreeya aan kula kulmaan rajeyna insha allahu tacaala sababtay uga soo gureen degmada maxaas hay-adda seef maxay tahay gudoomiye ma weydiisay wallahi wax cilada ugama soo guurin waxaan waa bajad hay-aduhu kolley bajedkiyaa dhammaaday hadduu la raali ka noqdo haddana sidaan rajaynayno insha allahu tacaala sanadka adiga bishii 11aad camal sanadkii 2018 bajedkii ka dhammaaday insha allahu tacaala markaa sanadka cusubkiisii weli wuu noo dhiman yahay sida hadda wararku nagu soo gaarayaan way nagu soo foolayiin insha allahu tacaala waayahay intaas haddaan kaga nimaado mudane gudoomiye abaaraha ka jira degmada maxaas iyo xaaladda amni ee degmada iyo howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada amnigu ay ka sameeyeen degmada maxaas ayaad ka soo hadashay baahiyaha kale ee ka jira degmada maxay yihiin xagga waxbarashada iyo caafimaadka waraygan baahiyaha kale oo ka jira xagga waxbarashada iyo caafimaadka xagga waxbarashada haddii aan ka hadlo waxbarashada tuulooyinka degmada hal tuulo waxbarashada leh kuma jirto way rafaadsan yihiin wasaaradda caafimaadka hirshabeelle midda federaalka hay-adaha iskuullada hadduu alidma saacida waxaan u bandhigayaa dad badan waxbarasho raba hadda tuulada sulmoo kaleeta hadduu alidma iskuullay leedahay macalimiin ma haysato gooba hadduu alidma iskuullay leedahay wax macnaha macalimiinta fangarayna ma haysato teedaan sidoo kale adiga hadduu la raali ka noqdo degmada arda fara badanaa joogta macalimiinta hadda joogay kuma filna oo macalimiin badan ay u baahan tahay hadduu la raali ka noqdo hay-adaha marka waxbarashada saacida maamul goboleedka hirshabeelle wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka waxaan u bandhigayaa degmada maxaaseed waxbarasho yaraa ka jirta insha allahu tacaala weliba tuulooyinka ilaahay khayr ha siiyo doctor maxamed soomaali waxuu ka abaabulo dugsi sare in laga dhigo ka abaabuliyo ilaahay ajir ha ka siiyo insha allahu tacaala hadda dugsigii sare adiga form 2 form 3 form 4 intaasba hadda macnaha sanadkaanay macnaha isla wada dhigto hayaan dhowr sano arrintaas soo wadiya khayr allah siiyo abaabul kolley isagoo ra'yigiisa iyo dadnimadiisu ka abaabulay yahay mid hadda ay ku saaciday si falanteernimahayna xataa ku dhigaano waxba kama qaataan lacagaha dooleedmo ilmihii qalin jibiyaba xamaraa loo aadsadaha shahaadooyinkooda laga soo waxeeyaa maxaas marka khayr allah siiyo doctoorkaas wuu nooleeyey jaaliyaddu in muddahay soo wada haddooleedmo barnaamijkaas macalimiinta dugsiyada hoose dhexa dhigeeda haddooleedmo khayr allah siiyo hadda kolley macnaha ilaahay wax ka helaan weli hadda aniga waan ku cusbaa maamulka haddooleedmo ma dhexgelin weli macalimiintu waxuma helaan hadda hay-aday ka helaan warama hayo laakiin arda badan oo hoose dhaxaa way joogaan form 2 form 3 form 4 intaasna waa la dhigtaa hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan maqlayay sitamaaradan ugu soo foolle ardada form 4ka in xaggan imtixaanka looga qaadaa imtixaan kaloo dowladdan usbuuca dambe laga qaadi doono saasaa la sheegay waaya xagga caafimaadka ka war xagga caafimaadka ilaaha mahad u sugnaatay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin adiga hay-ada badan waa joogaan oo nutrition iyo macnaha caafimaad ku hayaan adiga hadda hay-adda mercy oo kaleeto ninka la yidhaahdo nutrition waa bixida caafimaadna way haydaa hadduu alidmo hay-adda relief ayadana caafimaad iyo hadduu alidmo talaali waxbay isku wada waxayaan isbitaalkii guudna wuu noogu yaalaa ilaahay fadligiisa ilaahay noogu necmeeyey isbitaalku 100% uu noo yahay qalabku waa naga dhiman yahay hadda waxay sheegayeen hadduu alidmo darada markaan soo baxayo doctoorka waa u tegey dadkii ku dhaawacmay qaraxii qof wiil dhowr meelood ka jabay in lafaha loo shubo u baahan yahay yidhi qalabkii lafahan u baahanna uu yidhi hadduu la raali ka noqdo isbitaalka qalabkii lafaha haddaan loo helin xaalkiisa macnaha dadkii macnaha lafuhu ay ka burburaan wuxuu ku khasbanaan in xamar loo qaado haddii qalabkaas la helana insha allahu tacaala in xamar loo qaada looga badbaadi laho anagaa maxaad ku shubi lahayn yaa gacanta ku haya marka isbitaalka maamulka ayaa gacanta ku haya hay-ada ayaa gacanta ku haysa yaa gacanta ku haya isbitaalkaas hay-aduna gacanta kuma haydo maamulna gacanta kuma hayo isbitaalkaas khayr allah siiye jaaliyadda noo hagto oo mushaarka macalimiinta iyo waxaas naga farsameyda hadduu la raali ka noqdo doctoorkuna dadaalo sameeyo daawooyin uu xamar macnaha kasoo qaadqaaday waxbuu isku hahaabeeyey
meesha shaybaar iyo qaliinada dadka waxbaa laga qaadaa lacagaa waxay ku filnaadaan waxay ku filnaan waana jaaliyadda qabta wax hay-ad iyo maamul shaqo ku leeyahay ka madax bannaan yahay. xagga ganacsiga ka waran magaalada ganacsiga magaalada wuu fiican yahay meel kol haddii ammaan tahay hadduu la raalli ka noqdo waa wanaaggeedu waa iska badan yahay. ganacsiga magaalada wuu fiican yahay. xamar waa safaraan nooga yimaadaan macnaha caasimad goboleedkan beledweyne oo anaga gobolkeenina baabuurta boqolkiiba 80 boqolkiiba 90 ganacsigan wuxuu ku xiran yahay gobolka boqolkiiba 10 camal sida bagaashada waxaa lamid ah xamar ay nooga yimaadaan. arrinta lacagta shilinka Soomaaliga ah waxay muddo ku dhow 2 sanadood lagama isticmaalin deegaano badan oo ka tirsan Hiiraan oo ay ka mid tahay degmada Beledweyne degmada Maxaas iyo nawaaxigeeda si arrinta u saameysay. arrintaas wallaahi waa run hadda muqul waa laga isticmaalaa shilin Soomaali waxaan dhinaceena waa laga isticmaalaa annaga waa ku aanfowna annaga iyo Beledweyne iyo teedaan iyo nawaaxigaas degmada sida badan waa ku aanfowna lacagihii hore dhacay midii hore oo laga sameey jiray meesha la yiraahdo degmada cadaada laga sameey jiro qararafka ahayd iyo tii dhexe Puntland oo markii dambe macnaha iyaduna dhacday labadaas lacagood aan ku ceyrtaawni kabacdi waxaa la sameeyay FCC la iska isticmaalay dadkii marka wuxuu isku ilaaliyay shilin Soomaaliga uu diiday wuxuu isku ilaaliyay FCC uu isku ilaaliyay marka insha Allah taala hadda FCC laga isticmaalaa kulli anaga mas meeshii madaxiisu maraa majiisu maraana la yiri arrinta reer guraaga gobolku macnaha meeshu maraan kulli anaga aan la marayna gobolkan ku xiran hadda gobolka sidii waxa nimanka shilin Soomaaligu oo anaga nooga xaniimaya kulli dawladda federaalkan waxaan ka sugaynaa inay shilin Soomaali inoo soo sameeydo sax dadka reer guragaasi u saameysay arrintan hadwaalida waa saameeyay dadkii dad qoraal yaqaan ma ahan telefoonada way wada haystaan ninka lacagta markii uu wax gato telefoonkiisa loogu tuurayaa dadkaas boqolkiiba 80 marka wuxuu ugu baahdana nin yaqaan inuu yimaado uu leeyahay wuxuu macnaha uu ka dukaamaysto wala intaas laga rabaa iga tuur uu leeyahay to telefoonka ku tagto marka lacag shilin Soomaaligaas aad loogu baahan yahay cidii quseydana kulli waa dawladda federaalka dawladdaas marka dadweynahaas in shilin Soomaali lacag ajaanib isticmaalna in shilin Soomaali sidii ugu dhaqsaha badan lagu soo sameeyo saas aan ugu codsanayna. waayahay gudoomiyihii maamulka degmada Maxaas ayaa tahay imise bilood ayaa haysay xilka gudoomiyaha degmada xilka degmada 8 janna ayaa la magacaabay ilaahay fadligiis 4 bilood oo 12 imanaan haya adiga 15 camal imanaan haya. waayahay muddada hadda aad xilkaada haysay mudana gudoomiye maxaa isleedahay way ku qabsoomeen ama maamulkooda uu ku guuleystay oo ka qabateen degmada Maxaas intaan xilkaasan hayay 3 bilood iyo xogaaga barkaan xilkaan hayaa dawladmo waxyaabo badan aan qabtay adiga saldhigga booliiska kala dawladmo hal xabsi oo lahaa dumar hadii macnaha rag la isla keeno macnaha waxay noqon jirtay in qaar banaanka lagu waxeeyo ama dumarka banaanka la fariisiyo hadda xabsi labaad cusub oo shubahan isoo 5 mitir kii hore ka weyn hadda dadkii la keenaa hadii macnaha kiisasku ay badan yihiin qofkii mashiidiya mid lagu xiro dadka kale iska caadiga mid lagu xiro hadii macnaha dumar iyo rag macnaha la keeno dib soo galaan waa lagu kala xirayaa xabsigaas waa dhisay haduu ilaahay raali ka noqdo ninka la yiraahdo ganjeel ku baabacsanaa ganjeel haduu aalad caalami oo kulli hadii ilaahay nabad celiyo aan rajeyn inta la soo rinjiyay inaan haduu aalad intaan wariyaan wato la soo sawiro wax qabatiga media soo dhigan rajeyn insha Allah taala degmada dirbi macnaha ninka la yiraahdo saldhigga dirbiga ku wareegsan oo gaabnaa dhamaan intuu ahaa adiga 200 mitir camal oo wareegiisa dil isku celiyo noqonay adiga waa nus mitir aan ku kordhiyay xafiiska degmadaasna xafiis aad u weyn oo ahaa waxaan sameeyay ilaahay raali ka noqdo asna dirbiga uu gaabnaa asna nus mitir aan ku daray ilaahay haduu nabad celiyo waxaan rajeynayaa ninka la yiraahdo inaan haduu ilaahay raali ka noqdo aan suuqa firshada asaga aan dayactiro waxa ay garab yaalaha dawladmo aeroboor aan haduu aalidmaan xaaqni hadda adiga dhererkiisu ilaa 4 kilomitir ku dhawaad uu noqonaa balciisuna 400 mitir uu yahay hadda geed guridi waa lagu dhameeyay insha Allah taala waxaan rajeynaynaa arrintiisaas in hore aan u wadno waxaan u jeedinaa marka haduu la raali ka noqdo hay'adaha caalamiga dawladaha islaamka kuwan kale to haduu oo bini'aadanimada naga dhaxaydo federaalka Hirshabeelle jaaliyadaha waxaan u bandhigaa aeroboorkaas inay nagala qayb qaataan aeroboor diyaaradeed waay inay nagala qayb qaataan waa kharash ku baxa 1 milyan iyo adiga
lacag 1 milyan ku dhawaad noqonaydo oo doolar ku baxayda sida macnaha injineeradu ay tilmaameen inay nagala qayb qaataan Soomaalinimana lagala qayb qaato jaaliyadnimo hay-adnimo dowladnimo naloo kala qayb qaato eerboorkaas codsanayna insha Allah taala. waxaad tilmaantay in hadda aad bilowdeen in aad geedaha ka gurtaan ama aad banaysaan goob loogu talagalay in laga dhiso garoon diyaaradeed yaad ku tashanaysaan oo asleedi oo idin ballan qaaday inay ka caawin doonaan dhismaha garoonka ma jirta cid aad ballan wada gashay waxaa la yiri haloonimay waaydaani manma waaydo warasha la qaado hasha la qaado in la yiraahdo dadka xalaasada deesho waa loo saacideeyaa hadoo leedmo anaga marka hadda waxaan ku bilaabanay hashu ninay waayda oo qeylalaamiyaha diim oo loo qeylalaamiyo manma waaydo anaga hay'adaha caalamiga in hadoo leedmo Soomaaliya guud ahaan insha Allah taala Hirshabeelle dowladda federaalka dowladaha caalamka dhamaan hadoo leedmo anaga kuma filin waa bilaawna baahi weyn aan oo hayday in laga qayb qaato laga saacido kharashkaas faraha badan oo reer ku baxaya ayaan u bandhigayaa hadoo leedmo mudane gudoomiye aad baan kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad naga ogolaatay in aad waraysigan ama barnaamijkan nagala qayb gasho ugu dambeyn adigoo ka faa'iideysanaya fursadda ugu dambeysa maxay tahay fariinta u dirayso bulshada Soomaaliyeed fariintan u dirayaa waxay tahay degmada Maxaas haduu la raali ka noqdo aeroboorkaas dadkaas tabaaleysan oo xoolaha ku tiirsanaan noloshoodu haduu la raali ka noqdo wixii gurmadoo la gaari karo haddana mid biyoodna waa loo baahan yahay mid macnaha raashin dadkaas macaawinooyin waa u baahan yahay hadoo leedmo tan xigta aeroboorkaas in laga qayb qaato lagu saacido oo kharashkiisa laga qayb qaato intaas bulshada Soomaaliyeed u gudbinaya insha Allah taala waxaan codsanayaa qurbo joogta hay'adaha samafalka maamul goboleedka Hirshabeelle dowladda dhexe degmada Maxaas magacii kala hartay madaxweynihii dowladda dhexe Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre waxaan codsanaynaa insha Allah taala hay'adaha degmada dhan waa naga wada dayacan yihiin nooma sameysna in degmooyinkana laga daba geeyo oo hay'adaha dowladda laga saacido hadii dowladda federaalka tahay hadii Hirshabeelle tahay hadii hay'adaha caalamiga ay yihiin intaasaan codsanayaa guud ahaan dhegeystayaal intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii maqalka bulshada raadiyo Beledweyne codka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aad kala socoteen raadiyo Beledweyne FM 88 magaartay isla markaana toddobaadkan martii uu noogu ahaa gudoomiyaha maamulka degmada Maxaas ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale oo aynu ka wareysanaynay xaaladaha guud ee degmada Maxaas iyo waliba deegaanada hoos yimaaday iyo sidoo kale waxyaabihii u qabsoomay maamulkiisa muddadii xilka uu hayay gudoomiye Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale barnaamijkan oo qaalida kacsa ayaa la socodsiinayay intii socday barnaamijka waxaa isaga laanadii ugu farsameynayay saaxiibka Cabdisalaan Xasan Jimcaale tan iyo kulantada